wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Somaliland Saacad Cali Shire iyo wasiiru dawlaha maaliyadda Cismaan Saxardiid Cadaani oo ayaamahanba socdaal shaqo ku joogay caasimadda dalkani Kenya ee magaalada Nairobi ayaa martiqaad ballaaran ay u fidisay xildhibaanada laga soo doorto deegaanka Kiamba Marwaan Nokabi oo ka mid ahayd kooxdii xildhibaanada ahaa ee dhawaan ka soo laabtay carrigaasi Somaliland rafiiqana ay ku ahaayeen soo noqoshadooda imaatinka wasiirada wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka iyo wasiiru dawlaha maaliyadda ayaa martiqaad sharafeedkoodan waxaa ku wehelinayay safiirka jamhuuriyadda Somaliland oo fadhiya dalkani Kenya Maxamuud Cabdullaahi Jaamac Sifir iyo sidoo kale siyaasiga weyn ee la taliyaha dhanka diblomaasiyadda Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil waxa kale oo iyaguna martiqaadkaasi qayb ka ahaa xildhibaanadii dhawaan ka soo laabtay geeyigaasi Somaliland ee ay hogaaminaysay haweeneyda martiqaadka fidisay Marwaan Nokabi oo ay ka mid ahaayeen xildhibaanka laga soo doorto waqooyiga gobolka Siyelo Joseph Samuel Lomwa iyo sidoo kale xildhibaanka laga soo doorto deegaankaasi Nifasha John Karanja Kihagi martiqaadkan ay fidinayso Marwaan Nokabi oo ka dhacay mid ka mid ah hoteelada ugu cadcad geeyigan Kenya oo lagu magacaabo Windsor Golf Club ayaa waxa isaguna goobjoog ka ahaa Miss Ann aabaheed oo ka mid ah maalqabeennada ganacsatada ah ee ku dhaqan waddanka Kenya kadib markii uu soo gabagaboobay martiqaadkan ayaa waxaa hadallo kooban oo ku waajahan ujeedada martiqaadkan halkaasi ka soo jeedisay Marwaan Nokabi iyadoo oo sheegtay martiqaadkani inuu ka mid yahay kulanadii faraha badnaa ee soo daba socday ee lagu xoojinayay xiriirka iyo iskaashiga geeyiga Somaliland iyo waddanka Kenya ee soo taxnaa tan iyo muddo aad u fac weyn haatana dib u bilaabmay. We take this opportunity to welcome our Somaliland delegation to Kenya. We thank them for their hospitality. We have decided to bring them out to for lunch in Kenya to return the hospitality they showed us when we were in Hargeisa and Berbera, and also taking them to our premier destinations hotels that we have, and the type of investments that we would also like to bring to Somaliland once we deepen and strengthen and open up trade relationships between our two countries. Thank you very much and karibuni Kenya. waxa iyaguna sidoo kale kelmado kooban oo lagu baxaya luqadda afka Ingiriisiga ka soo jeediyay halkaasi xildhibaanadii ka soo qayb galay martiqaadkaasi oo ay ujeedadoodu ahaayeen sida ay Somaliland uga soo faa'iideen waxyaabo badan oo aan markii hore maskaxdooda ku jirin waxa sidoo kale isaguna halkaasi hadalka qaatay safiirka Somaliland oo fadhiya waddankani Kenya Maxamuud Cabdullaahi Jaamac Sifir waxaana hadalladiisii ka mid ahaa Somaliland wax badan bay u tari kartaa oo lagu fahmay xaaladda dadku markay soo eegaan ay tagaan ay indhahooda soo arkaan bay garan karaan xaaladdu siday tahay marka wax badan oo aynu sheegi lahayn ka muhiimsan ama ka waxtar badan aragtidooda ay tagaan ay indhahooda ku soo arkaan waxa iyaguna halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyay wasiirka qorsheynta qaranka Saacad Cali Shire iyo sidoo kale wasiiru dawlaha maaliyadda Cismaan Saxardiid Cadaani waxaan aad jecel inaan ugu mahad celino sida wanaagsan ee noo soo dhaweeyay iyo martiqaadka wanaagsan ee naloo sameeyay waayo waxaan nahay laba wadan oo runtii taariikh dheer ay ka dhaxayso wax badanna iska tari kara kalena baran kara marka waxaan rajaynaynaa in maxaan dhahdaa si qoto dheeraad si wanaagsan si durugto insha Kariim qaalaha iyo xagga maxaan dhahdaa dhaqanka iyo xagga maxaan dhahdaa security-ga iyo laftiisa iska kaashano waxyaabo badan dhex maray sida wasiirku sheegay run ahaantii aad iyo aad baan jeclahay markii ugu horreysay Saudi ay hogaaminaysay iyo aad run ahaantii Joseph baa halkan qoliyay kala ka jooga